بسم الله الرحمن الرحيم أولا السلام عليكم ولا لها قروح بدن سو دوادا كسو دوادا جنال كينا قروح دمر إن شاء الله عيدا سو دوجيga in liska dhiso waaye waxaan idin wadaa alaab wajiga kaale arag ka dhigeyso cadaan ha dhihin buuc hadin alaab wajiga nafaqo siinayso kuuna cadeynayso madmadow iyo nabar haduu kaaga jiranay yaa inta ii dal gaarin wajigaada dhala kaaga dhigeyso kaali soo dhawaa gabaryaha ka faa'iideyso insha Allah balse intaan bilaabin fadlan hadaan ugu cusubtahay subscribe ka noogu qabo gambaleelka on ka dhig si uu kugu soo dhaco video walba cusub insha Allah haddaba maxaan u baahanahay run ahaantii waxyaalaha aan soo qaatay waa waxyaalo aad u fudud faa'iidooyinkoodan aan la koobi karin ugu horeyn waxa u horeysa yaanyada sidaan ognahay wajiga waxay ka dhigtaa cadaan sidoo kale nabraha yaanyada aad ayay ugu fiican tahay hadaa leedahay wajigaada madmadow vitamin C ay yaanyada wajiga siisaa marka hadaa wajigaada uu leeyahay madmadow waxaas dhan way ka saaraysaa waxa u baahan tahay marka hore hal xabo yaanyo weel ayaa soo qaadanaysaa marka weel soo qaadato indan waxa soo qaadanaysaa bahasha karootada lagu hoolo hal xabo yaanyo ayaa hooleysa yaanyada zaid u weyn tahay jawaab kugu filan yaayooyinka iska yar haday tahay hal xabo kugu filan idan hal xabo yaanyo marka bahasha karootada ku hoosho waxa soo qaadanaysaa qaandooyinka yaryarka hal qaando oo bariis shiidan haduu ku oolin dhib malaha bariiska caadiga soo qaad qalaadida ku shiida insha Allah budo ka dhig haduu ku yaala bariis shiidan waa isku mid almuhiim bariis shiidan haduu ku oolin kaaga shiida hadii kalena mid ka haysta isticmaal waxa isku dareysaa yaanyadii aad soo hoosho iyo hal qaando oo bariis shiidan kadibna maxaa ku dareysaa waxaa ku dareysaa aloe vera gel waxaan u filayaa qof walba inuu garanayo waa dacarta ayadoo caadi oo dabiici hadaa haysid oo geedkan waa isticmaali kartaa ayadoo jal ahna hadaa haysid waa isticmaali kartaa qaandadii aad bariiska ku cabiratay ayaa ku cabiranaysaa insha Allah isku walaaq saddexdooda si fiican isku dhaxgali maxaa inoo dhiman kaniinka la yiraahdo vitamin E run ahaantii kaniinigan wajiga faa'iidada uu u leeyahay lama qiyaasi karo horta intaan u guda galin faa'iidadiisa waxyaalaha la isku dardara ay dhameystiro waxa ku dareysaa hal xabo oo kaniiniga vitamin E oil waxaan soo sheegay hal xabo yaanyo waa hooleysaa bahasha karootada ayaa ku hooleysaa idan waxa ku dareysaa qaando yar oo bariis shiidan waxa kale oo ku dareysaa qaando oo aloe vera gel iyo waxa kale oo ku dareysaa hal xabo vitamin E marka kaniinka la yiraahdo vitamin E intaas isku walaaq markay si fiican isku dhaxgalaan wajigaaga markaa mariso waxaa ku haynaysaa 15 daqiiqo alaabtan laguma seexanayo alaab lagu seexanayo ma aha walaalahayga qaaliga insha Allah sidoo kale waxa fiican waqtiga qabowgeed oo kale inaad iska marsatid kadib 15 daqiiqo markuu wajigaada ku angago waa iska dhaqaysaa run ahaantii vitamin E ga wajiga aad ay ugu fiican yahay xitaa kaligiis waa la isticmaali karaa aloe veradana xitaa madaxa dadka nabraha kule iyo waxyaalahaas waa lagu daaweeyaa alaabtan waa alaab cajiib lagama sheekeyn karo iida ka hor insha Allah isku qabta ku dadaala walaalahayga qaaliga iida waxa la rabaa insha Allah wajigaagii oo dhala yani ana kama wado qof madow u dhashtaa cadaanay laakiin waxaa jira dadka waxa koraaya kuleela jiro sidoo kale waxaa jira qofka dab ayuu galaa wajigaaga isbaq meelaha qabowga dadka jooga wajiga jacjac ayuu ka noqdaa waxaa jira gabdho wajiga nabra kale waxyaalahan wajigaaga waxay ka dhigayaan asalkiisi wajigaaga way ku dhalaalinayaan insha Allah ku dadaala sidoo kale gabdhaha wajiga lafaha ka wajiga uu u buuxinayaa buuc ayuu uga dhigayaa nabraha leedahay nabraha uu ka saarayaa cadaan iyo dhalaalna uu ku siinayaa insha Allah isku qabta alaabtaan yaa lagaaga hormarin ka faa'iideysi wacan videogana noo share gareey waa mahadsantiin walaalaha qaaliga wassalaamu calaykum